uu markaas u galmoodo oo xagganba uu ka garaaco lo'dan aad u jeedi kartaan daawadayaal magaalada muqdisho waxaa ka dhacday arrin la yaab leh oo argagax leh lo'dan aad arki kartaan daawadayaal ayaa magaalada muqdisho markaas lagu dubeeyay oo nin ayaa kufsi lo'dan u geystay waxa uuna markaas ka shaqeeyay xaggeedan dambe daawadayaal aad arki kartaan ayuu markaas kufsi u geystay degmada ay ka dhacday arrintan la yaabka leh ayaan idinla wadaagi doonaa dadka magaalada muqdisho ku nool sida ay uga falceliyeen in nin Soomaaliyeed oo raganimo sheeganayo in uu markaas u galmoodo oo xagga dambe uu ka garaaco lo'dan aad u jeedi kartaan daawadayaal oo xaaladeedu haatan ay halis tahay maadaama dhowr dhinac oo markaas lo'da uu ka dubeeyay sida la inoo sheegay ka hor ka hadalka warbixintan inta aan guda galin waxaan ka codsanayaa daawade inaad muuqaalkan like saarto si saaxiibo badan uu u gaaro dabcan mid lo ayaa dhibaataynaysa Facebook kugu weeraysa in uu helno saaxiibo u qalbi furan sida u aragto in nin sheeg ama uu u galmoonayo lo'dan aad arki kartaan daawadayaal ay maanta inoo suura gashay in aynu live ka soo galno oo tibinteena tooska ah markaas aynu ka soo galno waayahay daawadayaal sida aad arki kartiin lo'dan oo xoogan aad u jeedi kartiin ayaa markaasi xagga dambe laga dubeeyay waa sida aad arki kartaan dhaawacyadii ayaa markaasi ku yaalo oo dubeysku markaasi uu reebay ayaa ku yaala sida daawadayaal aad arki kartaan degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayay qisadan argagax leh ay ka dhacday magaalada muqdisho si weyn ayaa markaasi si weyn ayaa markaa hadal haya dhacdadan argagax leh ay marayaan la yaabka leh ee muqdisho ka taagan ama nin markaasi haweystay isla markaana ama wax ka raadiyay xayawaanka lo'da loo yaqaano dadku siyaabo kala duwan ayay uga hadlayaan dadka qaar waxa ay leeyihiin oo ay ku talinayaan markaasi in sharciga markaasi la hor keeno dadka qaar ay leeyihiin in markaasi nafta la dhaafiyo maadaama isaga oo nin rag ah uu ku haweystay ama uu damcay in lo markaasi uu xagga dambe dabcan uu ka garaaco ma suuro gelin in lo'da xilligii la dubeynayay aynu live soo galno oo bulshada la wadaagno balse haatan waxa inoo suura gashay in aynu aragno raadadkii xumaa ee uu reebay ninkaasi markaasi lo'da u galmooday kaamiramanka waxa ka codsan lahaa inuu soo dhaweeyo kaamirada si markaasi aad u aragtaan dhibaatada loo geystay xayawaankan aad u jeedi kartaan waa ka lo'dii markaasi dhibaatada loo geystay magaalada muqdisho dadku si weyn ay u hadal hayaan dhacdadan argagax leh waxayna dadku badankood soo jeedinayaan in xayawaankan lo'da ah markaasi uu helo cadaalad maadaama nin sheeganaya inuu boqolow yahay isla markaana nin rag ah oo markaasi wax ka raadshay xoolahan bahaahinka ah ee aad arki kartaan dadka ayaa dhabanada haysto yaaban yihiin maadaama ay muqdisho ugub ku tahay in xoolo waliba xayawaanka lo'da loo yaqaano gudaha caasimadda lagu dhex kufsado wixii war ah oo ka soo kordha kufsiga iyo dhibaatada loo geystay xayawaankan lo'da ah warbixinadeena iyo barnaamijyaadkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa fadlan muuqaalkan like garee si saaxiibo badan uu u gaaro adigoo u share gareynaya saaxiibada Facebook oo kugu heliya si saaxiibadaada ay xog dheeraad ah uga helaan lo'da halkan lagu dubeeyay isla markaana dhaawacyadeeda aad arki kartaan oo ninka markaasi u geystay waad ku mahadsantihiin daawadayaal